سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرويين يمضنا يا الملك الصدى عالم كاتك جوكتان اسم قلارتي وناكسن دي لهان تيم با هل كان تلفزيون كعالمي صومالي إثيوبيا ESTV استوديو سحرت ديغان كصومالي إثيوبيا كديار هاي anigoo Axmed Xidha Xasan in la socodsiin doono war wuxuu telefishinka ku talagalay naga soo gaaray deegaanka dalka iyo daafaha caalamka khiyaari qodobada ugu door koran xiltibintayadan wareedna waxa kamid ah wareegii sideedaad ee talaalka cudurka dabeesha guud ahaan ka socda deegaanka ayaa waxa uu ka socdaa maamulka magaalada Jigjiga waxaana kormeer howlad ku soo maray qaab socodka talaalkani kabineedka maamulka magaalada Jigjiga wareegii sideedaad ee talaalka cudurka dabeesha ayaa waxa sidoo kale ka socda magaalada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jarar khiyaari qodobkan idinka dalkana wuxuu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Mulatu Tashumi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi horkacaya gudoomiyaha sanduuqa caalamiga ee horumarinta beeraha Dr. Kino Wineza sidoo kale qodobkan idinka xiltibinteedan wareed dalka dibadiisana waxa uu yahay wareegii labaad ee doorashooyinka dalkaasi Afghanistan ayaa waxa la filayaa in dalkaasi ka bilaabmi doono 14 bisha fooda nagu soo haysa khiyaari qodobadani waxay qodobadii ugu door korona xiltibinteedan wareed qodobadan iyo qaar kale baasan baad u eebin waxaad kaga bogan doontaan xiltibinteedan wareed ee u diyaar garooba mar kale isma qalarti wanaagsan daawadayaal meel kastoo daafaha caalamka aad ka joogtaan talaalka cudurka dabeesha wareegii sideedaad oo guud ahaan ka socda deegaanka ayaa waxa uu ka socdaa maamulka magaalada Jigjiga waxaana kormeer howleed ku soo maray qaab socodka talaalkani kabineedka maamulka magaalada Jigjiga sida faalada warkani uu nagu qaada dhigayo wariye Amiin Qaamus Akid talaalka cudurka dabeesha ee polio wareegii sideed ka socda guud ahaan deegaanka ayaa waxa uu si habsami looga socdaa magaalada Jigjiga iyo nawaaxigeeda talaalkan oo lagu talaalayo carruurta ay dadoodu ka yartahay 15 sano waxaana uu talaalkani ka socdaa goobaha waxbarashada xarumaha caafimaadka guri ilaa guri iyo waliba dhammaan 12 qabale ee maamulka magaalada Jigjiga haddaba qaar kamid ah kabineedka maamulka magaalada Jigjiga ayaa kormeer shaqo ku soo marayay goobaha kala gedisan ee uu talaalkani ka socdo waxaana ugu horeyn wareysi la yeelanay madaxa xafiiska caafimaadka ee maamulka magaalada Jigjiga marwada qadaahir isla markaana nooga warbixisay kormeerkan shaqo ay ku marayeen goobaha uu talaalkani ka socdo iyo sidoo kale faa'iidooyinka uu leeyahay talaalkani carruurta ay dadoodu ka hooseysa 15 sano kulana dardaarantay waalidiinta ku dhaqan magaalada Jigjiga iyo nawaaxigeeda inay carruurtooda uga faa'iideeyaan talaalkani cudurka dabeesha ee polio hooyooyinka iyo waalidiinta waxaan halkan aan dardaaran uga soo jeedin lahaa ciyaalka 15 jir ka yar in la talaalo guri bay ay tiimamkii socdaan in maxaan ku yiraahdaa la garab istaago oo ciyaalkii goobihii caafimaadna inta la keeno in la talaalo sidoo kale waxaan wareysi la yeelanay qaar kamid ah kabineedkii maamulka magaalada Jigjiga ee kormeerka shaqo ku marayay goobaha uu talaalkani ka socdo isla markaana sheegay inay talaalkani uu faa'iidooyin weyn u leeyahay carruurta ku dhaqan guud ahaan deegaanka iyo waliba gaar ahaan magaalada Jigjiga iyo nawaaxigeeda anagoo ah xubnihii mas'uuliyiinta maamulka magaalada guud ahaan ku kala firaqsan ama ka shaqeynayna xaafadaha magaalada ka kooban tahay taasna waxa kalifay ciyaalka ama carruurta talaalka u baahan ee ku dhaqan magaalada oo aad u fara badan targetkeena uu yahay 75,000 waxa noqonaysa in aanu dadkii xirfadlayaasha caafimaadka ka shaqeynayay inaan anaguna aanu la shaqeynin la taagnaano sidoo kale qaar kamid ah carruurtii ka faa'iideysanaysay talaalkan cudurka dabeesha ee polio isla markaana nasiibka u heleen iyagoo goobahoodii waxbarasho jooga ay si habsami leh u helaan talaalkani poliyada ayaa cabiray dareenkooda farxadeed aadna u soo dhaweeyay talaalkani waxaan ku noolahay Jigjiga talaalka waana la talaalay aan ku faraxsanahay talaalku fiican yihiin iyagana way mahadsan yihiin talaalkan cudurka dabeesha ee polio oo faa'iidooyin badan u leh carruurta ay dadoodu ka hooseysa 15 sano ayaa waxa uu wareegii sideedaad si habsami leh uga socdaa guud ahaan deegaanka wareegii sideedaad ee talaalka cudurka dabeesha ayaa wuxuu sidoo kale ka bilaabmay magaalada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jarar sida faalada warkan uu noogu sheegayo wariyahayaga alaaba nooga soo warrama gobolka Jarar Maxamed Cabdi Garbo olahan talaalka ka hortagga cudurka dabeysha oo loo fulinayo qaabka guri ka guri isla markaasna looga faa'iideynayo carruurta daadoodu ka hooseyso 15 jirka ku kala dhaqan dhammaan xaafadaha magaalada Dhagaxbuur iyadoo waalidiinta carruurta daadoodu ka hooseyso 15 jirka ay keensanayeen goobahan laga fulinayo olahan talaalka ka hortagga cudurka dabeysha sida rasmiga ah looga bilaabay magaalada Dhagaxbuur maayirka maamulka magaalada Dhagaxbuur ay u helayeen qaar kamid ah mas'uuliyiinta maamulka
maamulka magaalada Dhagaxbuur ayaa halkaasi ku daafuray furitaanka olahan talaalka ka hortagga cudurka dabaysha isla markaasna ku dhibciyay labadii dhibcood ee ugu horeeyay mid ka mid ah carruurtii goobtaasi la keenay maayirka maamulka magaalada Dhagaxbuur mudane Suldaan Maxamed Xasan ayaa ka warbixiyay olahan talaalka ka hortagga cudurka dabaysha wareegga sideedada sida rasmiga uga bilaabmay magaalada Dhagaxbuur talaabadan ayaa waxay qayb ka tahay dadaalka xafiiska caafimaadka ee heer deegaan ku doonayo ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada faafa si loo helo jiil caafimaad qaba isla markaasna loo gaadho yoolka iyo himlooyinka horumarneed ee dhanka caafimaadka ee la hiigsanayo waxaana la filayaa in maalmaha soo socda ka socon doono xarunta gobolka Jarar ee magaalada Dhagaxbuur ololahan talaalka ka hortagga cudurka dabaysha wareegga sideedada isla talaalka ayayna ku guda jirnaa wareegga sideedaad ee ololaha talaalka cudurka dabaysha ayaa ka bilaabmay tuulooyinka hoos yimaada degmada Ararso ee gobolka Jarar sida faalada warkan uu ku sheegay wariye Maxamed Ibrahim Ruushka talaalkani waa mid lagu hortagay cudurka dabaysha laguna talaalayay carruurta da'du ay ka yartahay 15 sano ayaa waxa talaalkaasi oo si habsami leh uga dhacay degmada Ararso ee gobolkaasi Jarar talaalkaas oo ay fulinayeen xirfadlayaasha caafimaadka ee ka howlgala degmadaasi qaar ka mid ah hooyooyinka ku dhaqan degmadaasi Ararso oo iyagu talaalkaasi ka hadlay ayaa si weyn u soo dhaweeyay dadaalka ballaaran ee dowladda Soomaalidu ay ugu jirto sidii loo gacan siin lahaa hooyadii dhallaanka arrintaas oo ay sheegeen in ay dilacad u tahay sida ballaaran xafiiska caafimaadka ee dowladda Soomaalidu mar walba ugu heelan yahay ka jawaabida baahida hooyadii dhallaanka kadib markii loo talaalo hooyooyinkaasi ubadkooda anigoo ka hadlay hooyooyinka wax dhalay una sheegaya talaalku waxa uu yahay iyo sababta in laga doonayo inaan carruurteena hadii xitaa ay kula lagu soo gaari waayeen ciyaalkaaga keensato oo ugu timaado in kasta oo goob kasta oo joogan hooyada dhalaysay loogu geynayo miyi iyo magaalaba hadii aad hadaba hooyoy aad geysan weyda ilmahaaga noocaas ku dambeyn doona marka waxa iga ballan oo iga dardaarana hooyada haysata carruurta maadaama wadanteeda inta loo ordayo oo intaas oo adduuni uu ku baxayo inay ka faa'iideysato waqtiga oo ilmaheeda u danayso madaxafiisadka caafimaadka ee degmada Ararso mudane Khadar oo ka hadlay talaalkani laga hortagay cudurka dabaysha ayaa sheegay talaalkaasi oo si habsami looga socdo degmadaasi Ararso iyo tuulooyinka hoos yimaada isagoo dhinaca kale madaxafiisadku ugu baaqay dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool degmadaasi iyo nawaaxigeeda inay uga faa'iideeyaan ubadkooda talaalkani maadaama ka hortaggu uu ka wanaagsan yahay daweynta bilaabmay ololaha booliyada dhammaan qabaliyada hoos yimaada degmada Ararso iyo nawaaxigeeda iyadoo laga wada qayb qaatay bulshada degan degmada Ararso ololahana wuxuu socon doonaa muddo 6 cisho ah waxaana la talaalayaa ciyaal ka yar da'dooda 15 sano jir wixii ka yar ayaa dhammaan laga talaali doona cudurka booliyada wuxuuna socon doonaa muddo 6 cisho ah qaar ka mid ah xirfadlayaasha caafimaadka degmadaasi Ararso iyaguna ka hadlay sida ay hawshu u socoto ayaa si weyn u soo dhaweeyay gacanta ay ka heleen bulshada ku nool degmadaasi iyo nawaaxigeeda dhinaca kale waxaa talaalkaasi isaguna si weyn looga fuliyay tulada Dhiiriley oo iyadu ka tirsan degmadaasi Ararso halkaasoo waalidiinta ku dhaqan ay soo dhaweeyeen bogaadiyeenna howlaha ballaaran xafiiska caafimaadka ee dowladda Soomaalidu uu ka wado gudaha deegaanka oo dhan waxaana talaalka ubadka da'du ay ka yartahay 15 sano oo ay haatan ka socda gudaha qaybaha kala duwan oo ka kooban yahay dowladda Soomaalidu uu ku soo beegmaya xilli haatan ay roobka gugu ay si weyn uga da'ayaan qaybaha kala duwan oo ka kooban yahay deegaanka oo dhan wafdi ka socday wakaaladda dakhliga ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa kormeer hawleed oo qiimeyn iyo dabagal isugu jira ku gaaray magaalada Goday iyo maamulka magaalada Goday sida faalada warkan uu ku sheegayo wariye Cali Barkhad waxa kormeero hawleed oo kulanno iyo dabagal lagu dardargelinayo howlaha wakaaladda dakhliga degmooyinka ku tagay degmada Goday iyo maamulka magaalada Goday ee gobolka Shabeelle mas'uuliyiin ka tirsan wakaaladda dakhliga ee heer deegaan waftigan oo horkacay maaraya ku xigeenka wakaaladda dakhliga dowladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdicasiis Maxamed Cusmaan ayaa wuxuu ku qotomay dardargelinta arrimaha dakhliga abuurista ilo dakhli ururineed oo dheeri ah ku baraarujinta bulshada bixinta dakhliga isu diyaarinta diiwaangelinta ganacsatada iyo shaqaalaha degmadaasi iyo siinta tiin nambarka ee shatiga cashuur bixineed waxayna kulan la yeesheen mas'uuliyiinta maamulka wakaaladda dakhliga ee maamulka magaalada Goday iyo mas'uuliyiinta xafiiska dakhliga ee degmada Goday
waxaana ay la yeesheen kulano dabagal qiimeyn dardargelin iyo jihosiin kala qaadasho ugu dambeyntiina waxa uu wafdigaasi uga soo gudbay gobolkaasi Afdheer. akhyaarihii halkaad weli nagala socotaan waa telefishinka caalamiga ee Soomaalida Itoobiya ESTV mas'uuliyiinta xafiiska dakhliga degmada Shiniila ayaa sheegay in ganacsatada iyo hantiilayaashu ay bilaabeen qaadashada tiin nambarka sida faalada warkan uu noogu sheegay wariyahayaga alaaba nooga soo warrama gobolkaasi City Xasan Cabdi. xafiiska dakhliga ee degmada Shiniila ayaa wada dadaalo xoogan oo kor loogu qaadayo dakhli ururinta degmada Shiniila waxayna mas'uuliyiinta xafiiska dakhligu kuluna qabteen shaqaalaha ka howlgala xafiiskaas si looga dhabeeyo qorshaha dakhli ururinta degmada. kulankan ayaa waxa uu kula dardaarmay kusimaha xafiiska dakhliga mudane Mursal Muuse in shaqaalaha xafiiska dakhliga looga baahan yahay in ay ka soo dhalaalaan doorkooda kaga aadan kor u qaadista ilaha dakhliga isla markaasina ay ka dhabeeyaan hawlaha horumarka uu gundhiga u yahay dakhli ururintu. daba wacyi ballaaran oo uu sameeyay xafiiska dakhligu ayaa waxa hadda bulshada iyo waliba ganacsatadu ay bilaabeen qaadashada tiin nambarka ee cashuur bixinta taasoo hadda ka hor ay ganacsatadu u doonan jireen meel dhaadheer. waxayna sheegeen qaar ka mid ah ganacsatadan u soo doontay tiin nambarka xafiiska inay aad ugu faraxsan yihiin bixinta cashuurta isla markaasina ay ka qayb qaadanayaan hawlaha horumarka. sidoo kale shaqaalaha xafiiska dakhliga ee degmada ayaa tilmaamay inay u tafaaxaydanayaan isla markaasina ay ka soo dhalaalayaan doorkooda kaga aadan kor u qaadista ilaha dakhliga degmada. wuxuuna xafiisku hadda ku howlan yahay ka dhabaynta qorshahaasi. gudoomiyaha gobolka Afdheer oo kormeer howlad ku soo mariyay degmooyinka hoos yimaada gobolkaasi ayaa gaadhay degmada Qarsaadule ee gobolka Afdheer sida faalada warkan uu ku sheegayo wariye Mustafa Yuusuf. kormeerkani hawleed ee uu gudoomiyaha gobolka Afdheer mudane Maxamed Axmed ku marayay degmooyinka hoos yimaada gobolka Afdheer ayaa waxa uu gudoomiyuhu kormeerkiisan ku gaadhay degmada Qarsaadule ee ka tirsan gobolkaasi Afdheer halkaasna ku indheeyay sida habboon ee shacabka ku dhaqan degmadaasi Qarsaadule uga faa'iideystaan falashada beeraha waqtigan iyada oo kormeerkan hawleed ay ku weelinayeen maamulka degmadaasi Qarsaadule wuxuuna gudoomiyuhu soo dhaweeyay sida shacabka ku dhaqan degmadaasi uga faa'iideystaan beeraha kuna booriyay inay kor u qaadaan wax soo saarkooda tilmaamayna inay dawladdu ka taageerayso baahidooda. xubnaha maamulka degmada Qarsaadule oo kormeerkan qayb ka ahaa ayaa waxa uu gudoomiyaha degmadaasi Qarsaadule uu sheegay in ay waqtigan shacabka ku dhaqan degmadani oo badan beeraley ay ku hawlan yihiin falashada beerahooda. waxa ku beeran dalaga digirta waxa weeyaan waa dhul aad fara badan oo macnihii la beertay marka waa meel ka mid ah qabalaha xurriye ee hoos yimaada degmada Qarsaadule. kormeerkan hawleed ee maamulka gobolka Afdheer iyo maamulka degmada Qarsaadule isugu jiray ee booqday sida ay shacabka degmadu ugu hawlan yihiin falashada beeraha waqtigan ayaa waxa indhaha mas'uuliyiintani soo jiitay haweeney ku hawlaneed waqtigaasi falashada beerteeda oo ku qodaysay dibida isla markaana sheegtay inay waqtigan dadaal ugu jirto falashada beerteeda dawladdan uga mahad celisay taageerada joogtada ah ee shacabka degmadaasi laga siiyo sidii ay u xoojin lahaayeen wax soo saarkooda. bulshada ku dhaqan degmadani Qarsaadule oo intooda badani ka faa'iideysta wax soo saarka beeraha ayaa waxay maamulka degmadani sheegeen inay dadaal ugu jiraan sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen wax soo saarka beeralayda degmadaasi. shir ku saabsan hirgelinta qorshaha 2007 ee tirsi taariikheedka dalkan Itoobiya oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala gedisan ee bulshada ayaa ka qabsoomay magaalada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jarar sida faalada warkan uu ku sheegayo wariye Axmed Mataan. iyada oo laga duulayo nidaamka cadaaladaanta iyo isla xisaabtanka oo qayb ka ah qorshaha xukuumadda ayaa waxaa maamulka magaalada Dhagaxbuur ay kulan wada tashi ah la yeesheen qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Dhagaxbuur si markaasi bulshada looga tashado diyaarinta qorshaha sanadka 2007 tirsiga Itoobiya. maayarka magaalada Dhagaxbuur Suldaan Maxamed Xasan oo ugu horeyntii kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay in muhiimadda kulankani ay tahay in bulshada iyo maamulku ay ka wada tashadaan hanaanka ay u isticmaali lahaayeen miisaaniyadda sanadka soo socda ee 2007 tirsiga Itoobiya. waxaana hadaladii maayarka ka mid ahaa wadooyinka inoogu daran caafimaadka inoogu daran waxbarashada inoogu daran ma master planka iyo qorshaha inoogu daran ma biyagelinta inoogu badan ma leydhka inoogu daran inaynu si cad mataqaanaa uga wada hadlaan baana maaha inaan aragtida annada miisaaniyadda ku qabanno maaha aragtida annada oo keliya inaan miisaaniyadda ku qabanno maaha miisaaniyadda markaan qabayno waa inaan aragtida shacabka iyo aragtida maamulka oo midaysan inaynu miisaaniyadda ku qabanno wey.
sidoo kale madaxa xafiiska maaliyadda ee maamulka magaalada Dhagaxbuur Qorane Babyad oo la hadlayay bulshada kulankaasi ka soo qayb gashay ayaa sheegay bulshada looga baahan yahay in ay ka fikiraan horumarka mustaqbalka magaalada Dhagaxbuur isla markaana ay fikradahooda ka dhibtaan diyaarinta qorshahani isagoo sidoo kalena bulshada u faahfaahiyay hanaanka ay u shaqeeyaan maamul magaalooyinka dhankooda qaar ka mid ah bulshadii ka soo qayb gashay kulankaasi ayaa halkaasi ka soo jeediyay fikradooda ku aadan diyaarinta qorshe miisaaniyadeedka sanadka soo socda ee 2017 tirsi taariikheedka Itoobiya kulankaasi oo ku saabsanaa diyaarinta qorshe miisaaniyadeedka sanadka soo socda ee 2017 tirsiga Itoobiya ee maamulka magaalada Dhagaxbuur ayaa waxa uu qayb ka yahay barnaamijka cadcadaanta iyo isla xisaabtanka ee xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyadoo qodobkaasi uu dambeeyay khiyaari war waxaan idinka haynaa deegaanka haatan qodobkaan idinka haynaa dalka madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Mulatu Tashuma ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi oo horkacaya gudoomiyaha sanduuqa caalamiga ee horumarinta beeraha Dr. Kino Weneza sida faalada warkan uu noogu sheegayo wariye Cabdifataax Xade gudoomiyaha sanduuqa caalamiga ah ee horumarinta beeraha Dr. Kino Weneza ayaa sheegay inay sii xoojinayaan taageerada la siinay dadaalada ay dowladda Itoobiya ugu guntatay horumarinta beeraha madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Mulatu Tashuma ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdiga uu horkacaya gudoomiyaha sanduuqa caalamiga ah ee horumarinta beeraha Dr. Kino Weneza sanduuqan ayaa ilaa haatan ay kor u dhaafaysaa taageerada maaliyadeed ee uu ka geystay dhinaca horumarinta beeraha lacag kor u dhaafaysa 400 milyan oo dollar dhanka kale Dr. Kino Weneza ayaa madaxweynaha dalka u sheegay in 28 milyan oo dollar oo kamid ah lacagihii la amaahiyay uu sanduuqu ka cafiyay wuxuu mas'uulka intaas ku diray in sanduuqu doonayo in Itoobiya kala shaqeeyo dadaalada lagu horumarinayo bulshada dalka qaybaheeda dhaqaalaheedu sida weyn ugu tiirsan yahay dhaqashada xoolaha dadaalada lagu horumarinayo guud ahaan beeraha iyo hayaanka dalku ku beegsanayo in dhaqaalaha dalku uu soo dhinaca warshadaha geesta kale madaxweynaha dalka ayaa isaguna dhankiisa mas'uuliyiinta sanduuqa uga mahad celiyay waxqabadka ay ka muujinayaan dadaalada lagu horumarinayo dhinaca beeraha isagoo ballan qaaday in ay dawladdu la garab istaagayso waxa ay uga baahdaan ayaa waxa uu ka dalbay inuu sanduuqu sii wado dadaaladiisa halyeennimada ah qodobkan idinka hayna dalka dibadiisana khiyaari wuxuu yahay wareegii labaad ee doorashooyinka madaxtinimada dalkaasi Afghanistan ayaa la filayaa inuu ka bilaabmi doono dalkaasi 14 bisha foodo nagu soo haysa sida faalada warkan uu ku sheegaya mar kale Mustafa Yusuf wararka naga soo gaadhaya dalkaasi Afghanistan ayaa sheegaya in wareegii labaad ee doorashooyinka madaxtinimada dalkaasi la bilaabayo wareegga labaad ee doorashooyinka lagu xulanayo madaxweynaha dalkaasi ayaa timid kadib markii ay cidna ku guuleysan weyday kursiga madaxweynaha dalkaasi waa sida ay sheegayaan mas'uuliyiinta guddiga doorashooyinka dalkaasi xeerarka dhinaca doorashooyinka dalkaasi ayaa sheegaya in cidda madaxweynaha dalka noqonaysa looga baahan yahay in uu ugu yaraan helo 51% tirada codbixinta guud saddexda nin ee ugu horeeya ee tirada codadka ay heleen Cabdulcaali oo helay 45% codkii codbixiyayaasha isla markaana galay kaalinta koowaad Ashraf Gahani ayaa isaguna helay 31% kaas oo galay kaalinta labaad halka Zal Amir uu helay 11% tirada codbixinta kaas oo galay kaalinta saddexaad isku soo wada duuba waxaa la bilaabi doonaa wareegii labaad ee doorashooyinka madaxtinimada dalkaasi Afghanistan oo dalkaasi ka qabsoomi doonto 14 bisha foodo nagu soo haysa iyada oo la filayo in natiijooyinka doorashadaasna la sheegi doono muddo 2 bilood ah kadib akhyaari qodobkan ayaa ahaa qodobka ugu dambeeyay xilli tabinta iyada wareed warkana waxay la socodsiinay anigoo Axmed Xidha Xasan aniga akhyaarta kale la qayb qaadatay tabinta warkanba waxaan idinku dhaafaynaa qaybaha kale TV-ga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.